madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdiwaare ayaa maanta soo xiray shirkii maalgashiga Hirshabelle oo muddo 2 cisho ka socday caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle muddadii uu socday shirkani ayaa waxa ay soo bandhigeen shirkado iyo iskaashatooyin iyo wasaaradaha beeraha kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha waxyaabihii ay kheyraad ku ahayd dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana halkaasi ugu horeyntii ka hadlay qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay waxaana kamid ah gudoomiyaha beeralayda Soomaaliyeed Xasan Barqadle Wardoon oo waxyaabaha beeralayda u baahan si weyn uga hadlay waxa halkaasi iyana ka hadashay Suuda Mire oo ku hadashay codka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan nasiib wanaaga ogamana mahad celinayna geela gobolada Hiiraan iyo jowhar iyadoo isla markaana qayb ka qaatay hool loo baahnay in ay qabato wasaaradda beeraha ama maxay ahayd federaalka iyo Hirshabelle in ay isku xil saareen si shakhsiyan ahna u qabteen horumar aad loo taaban karo waxaan halkaas ka hadlay wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Ali Cabdulla Iskoowe oo aanu jeedin si aan wada shaqeyno oo shacabku wax uu qabano inay nala soo xiriiraan oo agtayna iska diiwaan galiyaan sida ay naftooda aan taaquleeyaan wax ugu qabalahan waxaan halkaas ka hadlay xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi Weli oo ka tirsan xildhibaanada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna si weyn u soo dhaweeyay horumarka ay sameynayaan beeralayda iyo shirkadaha wax soo saarka ee dalka aan ugu bishaareynaya jowharna ugu bishaareynaya iyo gobolka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraanba hadii awal ay ahayd jubbada hoose iyo Shabeellada hoose xagga wax soo saarka dambiisho cunada Soomaaliya maanta idinka waxa ay halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdi Xuseen Geedi iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Canab Axmed Ciise oo bogaadiyay shirkadihii iyo beeralayda soo abaabulay bandhiga muddada 2 cisho ka soconay magaalada Jowhar magaciinuna wuu qurux badan yahay wax qabadkiin koobaadna wuu qurux badan yahay oo jeelna waxaan ku soo baxay man ciid ka wanaagsan bal helay badaas weyn baan leenahay wabiyaashan haysanaa waxaan haysanaa dhulkii xoolaha ku dhaqmay ma haysanaa ugu dambeyntii waxa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdiwaare oo soo xiray shirkii maalgashiga muddada 2 cisho ka soconaya caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle beeralayda haddaan ka bilaabo beeralaydu runtii waa laf dhabarka wax soo saarka la'aantood isku maanan imaaneen waxa looga baahan yahay beeralaydu inay iskaashadaan is-abaabulaan iskaashooyin samaystaan kanaalada ka wada shaqeeyaan khilaafaadka dhexdooda xalistaan gudiyeyaashaan dad isku toosan oo wax la qaban karo inay noqdaan Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar